waxa kale aan idin sheegay ragow ragga iyo dumarku maxay isku doortaan koow waan ku soo celinayaa sheekadii hore laba kala duwan ragga iyo dumarku doorashada ninku his first priority ta ugu horeyso gabadha ku doorta waa maxay waa maxay ragow waa maxay الدين marka taas marka nafta banta u sheegayno xaqiiqadii waa maxay waa qurux waa wuxuu mid su'aashu waxa weeye ragu maxay dumar ku dooranaa wadaad wuxuu waa diin waa mid miskiina waa diin buu yiri haddii mar ماذا وحي أي كود يعني نفط ما حيش عش شدة ما قرح ميت وش الدبلة ثم وصالحات وحافظ القرآن ما كقولنا ثم ما قرح كمان منك وحكود دورتا وقرح that's the first thing هذو مركز سدا وإيجو إن شاء الله ما 10 قراءات حفظتها ما كتبته أحاديث كلها صورة ما يسوى حلي يقرأ لي أولاده قبلوا لكنكم حكوا دورتها العق قبلوا إنكم حكوا دورتها أيدي شيء waxay yiraahdaan status qiimihiisa ma governor ba ma president ba ma taajir ba qiimihiisa ku doorata gabadhu ninka ma kuma doorato aragiisa mid ban akhriyay maalin waa gaalo moogtay marka tusaaluhu waday waa istidlaan وخمارة 649 حاجة صار لقوها يعني ما لا وحه هلا العجل اللي قلت المامي لا بقول يا اللبي 8 مليون ونبدأ نيراك وننعض وسكب بوري هي وسكب ملاسي هي حبض يا رب برد والله اللي بعد مودة جيب لي سبع وجهي سوى وضع فنان وحيري ولي جاي إنا يعني إن صاحبتي يا شيء أمان قبل يا شيء ولي جاي إنني إمي سو إيجن مالنتي وهراي مليون يلا بيه طبعا بقول يلا بيه 8 مليون مالنتي كل حكتي إنهم قرح بدن بقورستي ما شاء الله تبارك قرح بدن قرح بدن مرة قورستي محكور الدوية نكاس الشلة ما أنت محكور الدوانا العجمها واستارس نينكو waxay doonaysaa gabadhu markuu ninkeedu meel soo galo in farta lagu fiiqo hebel ba soo galay oo taas iyo qaba hebel ayu qaba ma sha Allah halkan way fadhida waa wax ilaahay u sameeyay waa human doorashadu marka ma xuma tan lama diiday laakiin nabigu muxuu yiri afar bidaat diin nabigu sallallahu alayhi wa sallam diinta la ku dadaala laakiin diinta leh وانا ايش هذا كو قنعده واكي حديث المغيرة بن شعبة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارض سوءك هذا قبل دونتان وانا اركتان بقول النبي صلى الله عليه وسلم كرسار شلت الشيخ وحو كهدلay jacaylku ma dhici kara buu yiri قبل الزواج يصير بعد مسوي dhici kara بعد الزواج maxaa tiraahdaa shalato يا ويس خلاف سماها jacaylku ma dhici kara intaanu gurmeeshi imanin ما ديع كرا مثل ما ديع كرا هو ديع كرا النبي صلى الله عليه وسلم قال قرنس الحديث كي المغيث يا إنك سيود أن ولا يمكي هره يا بريرة المغيث ويشجع الله ينس منوقب إن ما رأى الحب النكاح مثل المتحابين النبي صلى الله عليه وسلم كرتا وهي وضنها ما كان تروشي وضنوه أركيا مثل هكذا تاجر وكل دقيقة خلاص ويقول مات واحد جرى لكن واحد إلى هذا romance يا love شعايلك قال علمي النفس مركب بني آدم كل دراسة كسميه شعايلك إياه وحنا إلى هذا وحوك لقيدين لبا شعايل لبا يا romance
romance waxa weeye yani gabadhaadu ma sha Allah intay ka maqantay aday ka fakiraysaa way ku warwaraysaa way kula soo hadlaysaa ka shaqaysan kari maysid xaaskaagii weeye haddana adiguna waad ka fakiraysaa inta goorta shaqada ka tagay ayuu madniyada ku haysaa waxa la romance imsa sanood buu noolaan karaa imsa u malaysan qofku inuu xumada jacaylka ku jiro intee lagu ku jiri karaa imsa sanado weligii ma jirto waa 3 ilaa 4 xumadan jacaylka meelba ka tuurtay waa 3 sanadood ilaa 4 saddexdaas sanadood ama 4taas sanadood ceebta qofkan aad sida ugu waarantay ma arkaysid ceebtiisa aad u arki maysid ma xaqiijin kartid waad u dambi dhaafaysaa waxaas uu sameeyaa waa ka soconaysaa way adiga waxa ku jirta mawjadan romance ka ku jirta jacayl xaqiiqa kuma jirto jacaylka xaqiiqiga marka goor mu imanaya wuxuu imanaya marka laga yimaado 3 ama 4 sano ka bacdi si walba aad u aragtay qofka marka asagoo cadaysan asagoo habiya ayadoo qurux badan ayadoo ma sha Allah wa'uudu billahi wa falhun yani si walba aad u aragtay gees walba ka aragtay si walba ninkiyo kariima ninkiyo bakhiila yani ninkiyo ku dayacay ninkiyo si walba aad u aragtay marka qaraar baad gaaraysaa 3 to 4 years marka kaatim ay ku dhamaadaan qaraar baad gaaraysaa qaraarku waxa weeye qofkan ma jeclaan kara uma sii wadi kara mise waxaan u jaraa halbowlaha xoolaha iyo guurku siday u xiriiraan dhalinyarada qaar baa kule waniyo maxaan haystaa waxba ma haystee mana ugu guursan kara ilaahay taa wuu ka cafiyay oo wuxuu yiri wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum war dhalinyarada u guuriyo kuwa saalixiinta israaciya hays guursadaan ويقول إلهي سبحانه وتعالى إن يكونوا فقراء وردي حول الله أنا ماشي جرته يغنيهم الله من فضل إلهي بحوله وحكسينا إياه إلهي بأتاؤها إياه خبلها إياه إن مضى إسراعية نبينا صلى الله عليه وسلم 3 حق على الله صدح إلهي مسؤولية وضعك قاضي ومحي محاكمة المجاهد في سبيل الله قف إلهي درتي أهري نفتيسا والمكاتب يقف دون يسحريه والناكح الذي يريد العفاف يقف دنيا إنه شركتيس إلى شباب صدح ذا إلهي سبحانه وتعالى مسؤولية ذوك قاضي وحكو حكت أنت عن دونيه إنه جورك عبادية هي نبي صلى الله عليه وسلم قال من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه قف إلهي سير قبر صالحة دين في سيقب قيب أيكت قاضي يعني وكخفيف فليتق الله في الشطر الثاني انت مركن كني مادنو waxaan jecelahay marka mas'alad kale aan idin sharaxo oo runtii inta hore waxay hayd macluumaad caam oo very general muqaddimadna way ii ahayd waxaan idin sheegayaa guurka labada qof markay isguursadaan hadiyo goor marka sharciyan la eego qofku gabadha wuu arkaa نظرة الشرعية وأركان إن أنت وي أركتان ولا كل ما من الشرعية يالغو كل ما من غير خلوة أيضا المقصد اللي يستقل قليلين أو لغلغية اللي يستقلين ميل عامة أما نقفك اللي تشوقع يالغو كل ما أنت والباك وقوه الرئية لكن قرما الله يصبرته مركا لو وددقوه حقيقة دو وحي تمادة وقفك أدنتي سقرانيسا مركا ذا نولاتي إمك أنتي واحد هذا واحد سليت سعيد راجع وقرنسا وحنا يدون كب الله قاضي إما قرنسا بقول كيف بقول إما قرنسا دوش نسكن قانا تضو أنا أقسم هنا وين سلانة وين كراتنا أنا إذا ما أقانا إذا كان إما تقانا ويمين وضع نولاني مين وضع الدقين مين وشيكي سنين إن بدن نينك قولي يقانا ولا وشيخ محمود هالكون اسمه سنين يقانا أنتي نكرد دوش لسك وضع برت كورها لبا قفو isguursaday aragii markii hore iska helay laakiin markay wada noolaadaan waxa soo baxda shakhsiyad kale xaqiiqadii ba soo baxda nabigu markaa wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam 4 min as-sa'ad afar ayaa lagu farxa
وسعادة أدون كبا أفر بكملة كو وامحي وحوه الرئيسي المرأة الصالحة قبر صالحة قبر والن أو هي سماها أو كو قيلين سماها وهو يدا يا أبها هكا وكرتيرين سماها ومرأة صالحة نبينا صلى الله عليه وسلم مركو فسر المرأة الصالحة لا بقول كو فسر مو نبي مو بالله كتاب مرها لقى قرأ التعريف اللغوي التعريف المؤرن لا بكر قال المرأة الصالحة من إذا نظر إليها زوجها سرته وإذا أمرها أطاعته شيء كذا وسوقنا ده النبي صلى الله عليه وسلم قبل دوام حيبو يري قبل مركو نين كيدو وأركو وأرجع ده كفرهم مدير هذا ما هو الحقيقة ما وهميدو كفر حي مركو وحويدية ما حدرنا أمر كيس أوك عن دقيني مرون إيو وايو إيو محاجر إيو مجرتو وحدا أفرتها توجه الرسول الساعة وحوي المرأة الصالحة يا أقل بلارن يا نينشارو وناكسن يا قاريرو وناكسن وسكدات فوشين أفرتها ساعة من السعادة 4 من وقحنا وقف كل عانا وأوبوزيت كأفرتا قبل والن قري ضيقة شار قيلينية يجاريو قبل ما كاجت شبا إلهي سبحانه وتعالى جورك مركو تلمامي وحكوش شاقي إنه جوركو يهي طريقة عرور لغو ياشو ذريات لغو ياشو كوكو أبتر صدا أتكفر حدد قرة أعين كون قنصة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة إلهي دمركا أقوستي أيان إذن كسيني عرو ماذا قارئ رشان يقارئ أو أنه قتنبو إلهي سبحانه وتعالى والنبي إلهي سبحانه وتعالى قرآن إنه أقوش هذا إنه قورك ويهي من سنن الأنبياء ولقد أرسلنا رسلا من قبل وجعلنا لهم أزواجا وذرية بالله dad adiga ka horeeyay nabi maxamed baan soo dirsanoo rasuul ah waxaana nusinaan u yeelay inay caruur iyo dumar yeeshaan iyo xaasas nabiyina sallallahu alayhi wa sallam dawu inoo sheegay wuxuu yiri hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisa wat-tib waj'ala qurra wuxuu nabiga sallallahu adduunkan waxaan ugu jecelahay buu yiri gabadh la guursado cadar la marsado iyo salaadana waan ku raaxaysaa wuu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri aan ku celinaya xadiiska adduunkan yani wuxuu ugu jeclaa nabiga sallallahu alayhi wasallam yani gabadh la guursado xaas la guursado dumarkiisa waayo maxabada ninka iyo gabadha u dhaxaysa inanka iyo hooyadii uma dhaxayn karto inanka iyo walaashi uma dhaxayn karto inanta iyo adeerkeed uma dhaxayn karto maxabadaas waxay timaadaa markuu qofku uu guursado qof ajnabiya ayuma timada marka nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam hubbiba ilayya min ad-dunya adduunka waxaan ku jeclay waa dumar guursado nabigu markii la weydiiyay man ahabbu an-nas ila sa'in amr bin aas markuu weydiiyay adduunka yaad ugu jeceshay dadkan yaad ugu jeceshay amr bin aas wuxuu yiri beriga waan soo muslimay waan cusba waxaan nabiga markan xaqiisa aan jaleecaba wuu soo eegay markan xaqiisa eegaba wuu soo eegay faqultu fi nafsi markan waxaan isku yiri wallahi inni la ahabbu an-nas ilayhi nabiga anigu adduunka igu jeceliye cid uu iga jeceliye ma jirto way mar walba anigu xaqiigu soo eegaya asaga baan weydiiyay ya rasuulallah man ahabbu an-nas yaad ugu jeceshay qala aisha عشان أقول شيء هو شيء كذي بو صوت قال قلت لا من الرجال برجع دوني الدمر كي نجد دايو شعلك الدمر كبون أجناي برجع يا تقول شيء عشان قال أبوها أبيهد ما نقول شيء على رجع يعني بقبل شعيل كي يقول حط الصي مو عرن أبو بكر الصديق لكن وحو كسي لري أيد أبو بكر وحول أبوها أبيهد ما نقول شيء عليه ومقام الشرف نبي صلى الله عليه وسلم لن يردن habeenkii gidaarada hablaha isu taagtaagay meelaha kala haasaawaya Facebook sawirada soo saaraya iyo hablahan qudhooda isqorqorxinaya cadarka ismarmarinaya ee meelaha qudhooda boodboodaya nabigu wuxuu ku dardaarmay wuxuu yaa macashara shabaab man istata'a minkum alba'at falyatazawwaj wariyada buu dhalinyaro wariyada buu yiri warkii guursan karo guurso kii laxaad marka laxaadku waa laba waa laxaadka jeebada iyo laxaadka raganimada
وحي دمرك أود والله وأود تشيبط يا أود الرجل ماذا وحي من استطاع منكم الباءة فليتزوج وكي كري كري وجورسو هدية كري كري ودان وصوم تبصد يقول النبي صلى الله عليه وسلم